يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس يجزعي. aniga walaal waxaan ahay injineer caadi ah waxaan aad ugu kalsoonahay oo aan rumaysanahay in uu jiro hal ilaah oo kaliya oo abuuray koonkan oo idil laakiin su'aasheedu waa waxaa jira khalqi abuur tusaale ahaan dadka ma ahan Allah abuuray dadka ma suurtagal ah inay burburiyaan caalamka Allah abuuray caalamka arintaas wax quseeyo ma ka hadlay walaalku su'aal buu na weydiiyay dhab ahaanna wuxuu waafaqsan yahay inuu jiro hal ilaah waa Allah abuuray koonka balse allahaas qaaliqa suurtagal ma u tahay inuu koonka burburiyo wax arinta ku saabsan ma jiraan hadaad akhriso quraanka waa waxiga ugu dambeeyo xagga alle ka soo degay subhanahu wa ta'ala waxa lagu sheegay in Allah koonkan abuuray sidoo kalena maalin uu burburin doono marka uu burburiyo abuur kale cusub ayuu abuurayaa balse caalamkan maanta aan ku noolnahay muddo kooban ayuu jirayaa wayna imaan doontaa maalinta Allah uu burburinayo caalamkan waxa loo yaqaanaa yawmul qiyaamah sidoo kale culimada saynisku waa ay ka hadleen waa ay sheegeen inuu caalamku dhamaanayo waxaa jira aragtiyo badan oo ay sheegeen culimada saynisku sida godka madow iyo wixii lamid ah aragtiyadan iyo ka soo qaadiyadan qaar kamid ah waxay waafaqayaan waxa lagu sheegay quraanka tusaale ahaan quraanka waxa lagu sheegay qorraxda iyo dayaxuba inay kulmayaan quraanku wuxuu sheegay baduhu inay daad sameyn doonaan quraanku wuxuu sheego kale inay xidiguhu soo daadanayaan quraanku wuxuu leeyahay koonku waa usuuli doonaa wuuna dhamaan doonaa waxyaabo badan oo la sheegay waxay u eg yihiin aragtiyadaas iyo ka soo qaadiyadaas ay culimada saynisku gaareen maxaa aragtiyo loogu magacaabayaa maxaa yeelay qaladna waa noqon karaan saxna waa noqon karaan balse quraanka waa waxigii ugu dambeeyay oo alle xaqiisa laga soo dejiyo alle waxa uu ku sheegay kitaabkiisa si xaqiiqo ah ayay u dhici doonaan koonku dhamaantii waa uu dhamaan doonaa wuxuuna u dhamaan doonaa qaabkii uu alle subxaanahu wa ta'ala ku sheegay quraanka markaa kadibna alle wuuna soo bixin doonaa wuxuuna abuuri doonaa khalqi cusub iyadoo lagu dhisayo wixii aan adduunyadan ku dhex samaysanay markaas waxa la xadidi doonaa halkaan aadi lahayn sida allahba ku sheegay suuratul mulki suurada 67 aayada 2 alladhi khalaqa al-mawta wal hayata allah waa kan abuuray dhimashada iyo nolosha si uu idin imtixaano kiineeba samaysanaya amal wanaagsan haddaba arintan quraanka ayaa lagu sheegay walaal ma rumaysan tahay allahaasi khaaliqa ah ma rumaysan tahay inuu hal ilaah jiro aniga dadka ma rumaysni dadka yani tusaale ahaan maxaadan rumaysnayn dadka ma rumaysni abuurka haddaba waxaad leedahay dadku way burburin karaan dhulkan waa u suurtagal inay dhulka burburiyaan haa walaalku wuxuu leeyahay dadku sidoo kale way burburin karaan dhulkan haa ma rumaysni waa maxay waana ku shakisanahay adiga waxaad aaminsan tahay dadku inay burburin karaan abuurka alle haa walaalku wuxuu sheegayaa inuu aaminsan yahay dadku inay burburin karaan caalamkan oo ay suulin karaan waa ay isku dayi karaan laakiin kuma guuleysan doonaan ilaa alle subxaanahu wa ta'ala u idma mooye culimadu waxa ay leeyihiin abuurku waa laba nooc midka koobaad waa shay laga soo saaro si shay kale loogu sameeyo arintaas waa wax dadku ay sameeyaan geedka ayaan jaraynaa si aan u helno tiir weyn oo aan ka sameysano sida miiska iyo kursiga waa shay laga sameeyay arintaas waa wax dadku ay sameyn karaan alle subxaanahu wa ta'ala hubanti ahaan uu sameyn karaa nooca labaad ee abuurka kamida waa shay laga abuuray jiritaan la'aan arintaas dadku ma sameyn karaan allah azza wa jalla kaliya ayaa awooda arintaas kaliya allah ayaa awooda haddaba ereyga khalaqa luqadda carabiga waa laba macno kan koobaad waa shay laga abuuro macnaha kale ee ereyga khalaqa waa shay laga abuuro jiritaan la'aan arintaasina waa taxadiga alle subxaanahu wa ta'ala noogu sheegay suuratu duur suurada 52 aayada 35 ma ku suurtagal ah inaad abuurto shay aan hore u jirin yani cadam jawaabtu waa maya haddaba markaad sheegayso adigu inaad geedka burburisay adiga geedka baad jartay miis ama kursi baad ka samaysatay geedka qaabkiisu baa isbedelay oo kaliya arintaas waa waxay oranayaan culimadu jiritaanka baa isbedelay haddaba noocan kamid ah abuuritaanka dadku waa ay sameyn karaan ku suurtagal inaad bulkeeti samaysato kadibna guriga aad ku adkaysato muddo kadibna wuu ka burburaya haddana gurigaasi waa aad burburi kartaa balse alle subxaanahu wa ta'ala oo kaliya ayaa awooda in shay uu cadam ka abuuray yani aan horay u jirin sidoo kale waa uu burburin karaa dhammaan laakiin anagu ma awoodno waa ku suurtagal inaad isku daydo inaad samaysato nuclear kadibna aad wax ku burburiso balse ma awoodid inaad shay kasta burburiso burburintaasi waxa awoodo oo kaliya Allah subxaanahu wa ta'ala balse anagu ma awoodno isla sababtaasi quraanka waxa lagu sheegay in Allah subxaanahu wa ta'ala uu abuuray koonkan dib ayuuna ka burburin doonaa oo abuur kale cusub ayuu abuuri doonaa
وحرجينا سؤال هذا كجوابي إن الرضا وصف المنيب الألمعي وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء